magacaygu waa Rasmi Mira Cali waxaan ahay maamulaha guud ee xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi xaruntan waxaa loo aasaasay baahiyo jira awgeed gabdhaheena Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan sida cunno karinta cilaansaarka iyo qurxinta wajiga maadaama aan aragnay baahiyo fara badan ee gabdhaheena Soomaaliyeed u qabaan goobo aysan jirin goobo ay uga faa'iideystaan xirfadahaas baahida ugu badan ee aan u aasaasnay waa inta gabdho badan oo aad u jecel oo daneynaya way ka faa'iideysteen kuwana hadda waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideysan doonaan fursadan qaaliga ay bixinaysa xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi koorsooyin badanna way socdaan kuwana hadda waa bilowna galaasyadii sidii loogu talagalay bay u socdaan markaan inta imaanin ka hor xarunta horumarinta qoyska ma aqoonin make-upka meel laga maro iyo sida loo marsado laakiin markaan imaad xarunta horumarinta qoyska ee Rasmi waxaa la ii baray sida oo gabdhaha isku qurxiyaan sida make-upka iyo noocyadiisa kala duwan waxaa kaloo ka bartaa cunno karinta koorsooyinka aan bixino waa sida cilaansaarka cunno karinta iyo make-upka koorsooyinka intaba 6 bilood ay baxaan tiiba muddo 2 bilood ay baxdaa sida cilaansaarka oo kale 2 bilood oo ardayga ku qaadan kana ama ku baran karaa make-upka oo kale waa qurxinta wajiga 2 bilood ku baran karaa sida aan iraahday cilaansaarka oo kale muddo 2 bilood isku soo wada duubo oo wax isku noqonaya muddo 6 bilood 6daas bilood ardayga ku soo saarnaa wallahi waxyaabo badan aan jecelnahay in xaruntan aan ku soo kordhino wax kasta oo quseeya dumar hawshooda ama dumar ay qaban karaan in aan ku soo kordhino waa rajaynaynaa sida harqaanka kale in goordhow aan ku soo kordhino insha Allah magacaygu Fartuun Cabdaale xarunta Rasmi markaa ku soo biiray wax badan aan ka faa'iideystay sida make-upka hadii marsan oo kale aan marsaday cilaansaarka cunto karista waxyaalo badan aan ka bartay alxamdulillah haddana ku sii rajo weyn aan ku sii barto maya cid naga gacan siisa hadii ahaan lahayd hay'adaha kale ama cid kale shakhsiyaad kale oo gacan nagu siisa in xaruntan aan furno ma jirto kaliya anaga aan isku tagnay fikrad aan anaga isku darsanay oo maadaama aan aragno baahi aad u fara badan in gabdhaha ay u qabaan in jecel yihiin inay wax bartaan bulsho wax baratay ay raahdo gabar wax baratay waa bulsho wax baratay saas darteed anagoo baranay wixii naqaano oo isku tagnay baan isreen xaruntan asaasa saas darteed aan u asaasa xaruntan ilaa haddana wax garab nagu sii ama qolooyin kale ma jiraan xaruntan hamiye hiigsi fog oo aad u weyn bay leedahay in gabdhaheena Soomaaliyeed heer sare ay gaarsiinaan rajeynaynaa oo noqdaan kuwa ka faa'iideysta xarunta waxyaabaha ay bixinayso waxa ugu baaqayaa gabdhaha jecel in ay ka faa'iideystaan xirfadahan in si degdeg ah ay u bartaan kuwa bartay oo yaqaano ama wax u bilaaban yahay kale in waxyaabaha ay barteen inaysan guryaha la fadhinin gabdhaha walaalahooda ee jecel inay wax bartaan ugu faa'iideeyaan